wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland iyo magaalada Burco ku qabatay tababar lagaga hadlayo shaqo abuurka kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland waxaana tababarkaasi daafuray agaasimaha waaxda shaqo abuurka ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland Maxamed Axmed Cabdiraxmaan kaas oo ku dheeraaday doorka wasaaradda shaqo-gelintu ka qaadanayso shaqo abuurka dalka. shaqaalaha wasaaradda shaqo-gelinta aqoontooda xirfadeed kor loogu qaadayo lagu kubcinayo xirfadooda si ay u noqdaan gobol ahaan gobolka Togdheer shaqaalaha ku sugan dad aqoon ahaan isku filan shaqaalaha marka wasaaradda heer gobol jooga in la tababaro aqoontooda la kubciyo xirfadda aqooneed ee suuqa shaqadana loo baro oo lagu tababaro waxaan doonaynaa ka wasaarad ahaan maadaama aynu nahay wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada dhammaan wixii shaqo la'aan waddanka jirta inagayna soo eegaya waxaan doonaynaa si shaqo la'aanta baahsan looga baxo inaynu tiimka wasaaradda ugu horeyn xirfadooda aqooneed kor u qaadno si iyana ay u sii gaarsiiyaan shaqaalaha kale ama dhalinyarada shaqadoonka ee waddanka joogta ee jaamacadaha ka baxaysa ee shaqo raadiska ah ama shaqo carbinta ku jirta in tababarka loo siiyo tababarkan waxa la idinku tababarayaa waa TOT ahaan inaad tihiin inaad idinku tababarka sii bixin kartaan waa muhiim maalin kasta qof TOT ah in Hargeysa laga soo diro wax ka qurux badan tiimka heer gobol ee wasaaradda in iyagu tababarka sii bixiyaan job centerka gobolka dhalinyarada ku xidhan ee shaqadoonka ah ee inta shaqo raadiska in xirfadooda aqooneed ee suuqa shaqada la fahansiiyo oo la baro taana waxay keenaysaa isku filnaansho heer gobol inaad gaadhaan xasan gaar hayo ka socday hay'adda isbaaka iyo sidoo kale macalinka bixinaya tababarkani ayaa dhankooda kula dardaarmay dadka ka faa'iideysanaya tababarkaasi ku saabsan shaqo abuurka inay uga sii faa'iideeyaan qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer. anagu isbaak ahaan waxyaabahan idin qaban karna waxa kamid ah inaan xog idin la share gareyno documents haddii aan documenti hayo in documentiyo badan baan employability-gan iyo sector-kan ka haynaa marka anagoo wasaaradda soo dhex marayna maaragtay teamkan headiska idii ah ee centerka jooga wixii aad documenti iyo TOT material aad u baahantiin materialo very rich aynu heli karayna oo aad jaamacadihiina ku tababartaan oo aad dhalinyarta ku tababartaan oo markay ugu yar tahay qof dhalinyarta ka mid oo firfircoon aad u dhiibi karto resource-kana weligaa lama hayo haddaad imanka module training oo fiican aad share garayso qof yaroo firfircoon u dhiibto markay ugu yartay jaamacaddan burcun buu la tegaya qaar buu ku tababaraya soo sadaa ma marka resource-na waan idinla share garayn doonaa diyaarna isbaak ahaan waxaan u nahay intaa insha allah dee aynu wada joogno wixii taakula iyo taageeraa inaanu idinkala shaqeyno marka trainingkani waxa weeyaan TOT-guna uu ka duwan yahay maxaa traininadii kale waxa la doonayaa dee inaad idinku sii tababartaan oo mar dhow aan in badan la idinku soo noqono aad idinku dadkii sii tababartaan haday dhexdiina noqonaysa shaqaalaha kale oo la isbedbedelayo shaqaalaha dawladdu kolba qayb ay isbedeshaan ama department kale u guura haday noqonaysa dadka externalka aan hore soo sheegay injineer manaya waxa kale iyagana aad ugu mahadnaqaynaa teamkan ka socda Spark waa Mukhtaar iyo Xasan oo mashruucan markii koowaad aan ka wada shaqeyno si direct iyo indirect weyn wada shaqeyn jirnay oo ifantiska kale ee commemorationska aynu qabanna qayb ka ahaan jireen Khaliil Barawran TV-ga qaranka Soomaaliland Burco.